قرداستيبا إسقال لك وأن لو ودين أنا أمان سامه وحجر ويلك وضوحنا يا قرداستان كلا صباحية أرنتي وامركت sheekadan aynu maqallo caanka ah inta yar inaga soo gaadhay ee la yiraahdo yaxye uu dhexdhexaadinay farfariiso hayaag habar waa hub ka dhig reer barrow ridaqal hal la yeela yaxli waxa la yiraahdaa taariikhda bay ahayd garaashir shoore isagoon wali garaadaxaynu nin dhalinyaro ah baa duulaan la abaabulay duulaankii buu yiri waa raacaya خالد وكوينا إيو حسن وقاس بكرهبي غير هذا أديكو رير ملهيت أنكو ريران ولين ركبة شوق أديكو ولي واد سكوتو بنت شوق لما كي كرهبي خالد بانا أبد نابا اللي يو كل عرتي لما ديبا ناقوه ديبو تمالي دقال كيبا كل انتين شرشورة تمالي وفارح يا محمود iyo حسن ugaas waa isku hooyo oo bawac ismugo nimanka la yiraahdo abdi garaad iyo dudub khaalidna waa isku hooyo oo waxa la yiraahdaa bagar dhaalay bismillaahir rahmaanir rahiim waa galab arbaca bishii 19 keedii 2022 waxaynu joognaa magaalada Saxdheer saldhigga garaadka guud ee gobolada SSCD ama sida loo yaqaan soo sanadii cayn doolo galabta waxaynu chance u helay inaynu wareysano garaad jaamac garaad cali garaadka guud ee Dhulbahante kana wareysano garaadtooyada Dhulbahante insha Allah taala waxaan rajaynayaa inaynu isla socono si waxaan uga faa'iideysano garaadka garaad marka koowaad ku soo dhawow wareysna wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh جزاكم الله خير الجزاء أحمد محمد محمد أحمد وإذن السلام إياه وأنا إذن سود وين إياه فليتفضل هذا ما تتهجرد ويدين تورس وحنا كل جينا قرما يشوف بلعبتي جرات تويد بالبهمته يصير يكون صوب بلعبتي جرات كسكان رأي إن شاء الله يرجعين بسم الله وبه نستعين على أمر الدنيا والدين وصلى الله على من لا نبي بعده وصلوات الله وسلام عليه رأنتي قراتويدو وقت جاي صوب بلعبتي أد وفقته نصيب دره أمد الصوماليات ضرب قرة ولقى القرى له ما أي أخا وأورور سوسايتي مركا sideeba marka lagu garan karaa raaci iyo bilowgii sidee loo raaci karaa waa su'aal in badan taariikhda Soomaalida hase yeeshee waxa kaliya hayno waa abtirsiyadeennii baan lubin ilaa iyo garaadkii ay ka soo bilaabantay ilaa iyo garaadka haddeer jooga ilaa iyo garaadadii u dhaxeeyay dee waynu haynaa taariikhda marka culimadu ay saasoo kala sameynayaan raac ku sameynayaan dadka oral society-ga ah ee aan la hubin waxa la yiraahdaa generationku inteebu isku dhaxlaa laba fikir baa jira laba school of thought labada fikir mid wuxuu oranayaa oo badan labadii jil waxa u dhaxeeya 30 sano midana wuxuu oranayaa waxa u dhaxeeya 35 sano kuwa yiraahda waa jiraan 40 sano hase yeeshee waa laga awood badan waxa la yiraahdaa way badan tahay marka aynu qaadano labada tayar tirada yar markaynu qaadanay 30ka ah ee aynu ku dhufanno inta garaad ee soo martay garaadtooyada oo 23 waxay noqonaysaa 690 miya haddaynu qaadano tan 35ka ana waxay noqonaysaa 805 waa maanta marka la joogo 2022 xagee ka timid 23ka garaad in la sharaxo waa u baahan tahay 16 garaad waa wiil iyo aabihii 1 iyo 2 iyo 3 oo aan bahalkii lahayn 16 ka garaad wiil iyo aabihii iyo garaad Cabdiqani iyo anigu aan ka dhaxlay kuma jiro
waxaan ku jirin ilaahay hadduu kuu roon yahay garaad aardheel oo uu ka dhaxlay garaad jaamac garaad cali garaad aardheel garaad maxamed iyo garaad xuseen oo garaad jaamac walaaladiisa yaa ka horreeyey intaas waa maxay soo afar maaha afar garaad oo aan 16ka wiil iyo aabihiya ku jirin waxaa ku xiga garaad caduur oo walaalkay ka dhaxlay oo inta ay isna garaad maxamuud garaad cali waxaa ku jira garaad cali barkad oo in adeerkii labaad ka dhaxlay may waa in adeerkii ruma ka dhaxlay waxaa ku jira garaad yaasiin garaad faarax intaas ina soo saddex maaha toddobada aan ama aan ka dhaxlin aabahood ama wiilkoodusan ka dhaxlin most importantly uusan wiilkoodu ka dhaxlin waa toddobada garaad cabdiqani ugu dambeeyey garaad yaasiinna uu ugu horreeyey haddaba marka tirada la qaato garaadka ay ka soo bilaabatayna waa garaad shirshoore garaad shirshoore waa ina habarwaa cabdalla muuse siciid dhulbahante anigu ma aaminsani dadka yiraahda dhulbahante iyo siciid waa isku mid waxaan u aqaanaa laba nin oo kala duwan inay yihiin oo isdhalay oo dhulbahante uu magaciisa magac la bixiyey lagu riyooday meel yaalla uu yahay aan siciid isaga la oran jirin wiilkiisa la oran jiray marka la yiraahdo shirshoore oo afar ugu taga dhulbahante oo ka tirsada habarwaa iyo cabdalla iyo muuse iyo siciid iyo dhulbahante ka tirsada afar way marka ma la oran karaa dadka afar isugu taga garaad way yeelan karaan waa maya wuxuu ugu tagaa daarood soo dhulbahante harti iyo koombe iyo kabalaha marka qoys weeye toddoba meesha la isugu tago waa qoys marka waxay u badan tahay cidda garaadka samaysatay ee garaad shirshoore ku caana shubatay in daaroodka iyo dadkii la deganaa inay ahaayeen ee ayaan dhulbahante ahayn daaroodku dhama marka reer qoys yaroo toddobaba isugu yimaada jilib bayba noqonayaan keligoodu weliba maaha iyagaa qoys ii noqonayo soomaalidii meesha deganayd ilaahay hadduu kuu roon yahay inay reerkan kala soo baxeen dhulbahantana qoys uu ahaa daaroodna jilib uu ahaa oo kablalax ay ahaayeen marka xilligaana uun haddaynu qiyaasta tirada soo martay aynu qaadanno xilli 1200 miilaadiga ku aadan inay ahayd waka aad baad mahadsantahay garaad shirshoore sidii aad inoo sheegtay ama dadku inta badan og yihiin garaadada dhulbahante waxay ka soo bilaabatay garaad shirshoore garaadkii labaad ee ka dhaxlay kuma intaanan kaa u gudbin garaad shirshoore waxaa la yiraahdaa qoyskan dhulbahantoo meel degan aan dhaafay yaa wadaad xer u hayay oo quraanka carruurta ugu dhigi jiray yaa ku riyooday in reerka garaad laga dooranayo uu sheeg alla baryo garaad baa xalay aan idinku riyooday soomaalida meesha degan kadib waxay yiraahdaan ina amaansame ragga taariikhda wariya way isku qabtaan qaar waxay yiraahdaan waa amaansame qaarna waxay yiraahdaan ina amaansame oo hayaag awow labaad u ahaa waa wadaadkii xoola siiyey oo yiri qardhaas ii qor qardhaas waxaad iigu qortaa garaadka la dooranayo inuu aniga noqdo iguna ducee xoolahana waa ku siinay geel badan baa qaarna siiyey qaarna u ballan qaad shirshoore oo kuriya 10 jir meelaha baa la yiraahdaa wadaadkii intuu qardhaastii qoray aana ka dhargay oo geed hoostii hurda qaarna waxay yiraahdaan taariikhyahanadu wiil guurguuranayo ahaa qaarna waxay yiraahdaan ma ahee kuray ilaa 7 jir inta u dhaxaysa yuu ahaa yaa qardhaastiiba laqay qardhaastiiba isagaa laqay oo aan loo wadin ina amaansame wuxuu yiri wiilka waa dooxanaya qardhaastan kala soo baxaya arrintii waa murugtay sheekadan aynu maqallo caanka ah inta yar inaga soo gaadhay ee la yiraahdo yaxye uu dhexdhexaadinayo
farfariiso hayaag habar waa hub ka dhig reer barrow rida qal hal la yeela yaxli waxaa la yidhahdaa taariikhda bay ahayd adigu arrintii waa laga diiday dooxidii wiilka uu dooxi lahaa waa laga diiday waxaa la yidhi ilaahay hadduu kuu roon yahay macquul maaha dee ragguna qaalibu berig ahaa wixii qadar bayna ahayd qadhaas hal kale ha lagu qoro isna wadaadkiina wuxuu yidhi qadhaasii qore mar keliya ayaan qore waxay kaloo yidhaahdaan garaashir shoore isagoon weli garaad ahaynu nin dhallinyaro ah baa duulaan la abaabulay duulaankii buu yidhi waa raacaya khaalid oo ka weynaa iyo xasan ugaas baa ka reebay waxay yidhaahdeen adigu reer ma lihid annagu reeraanu leenahay rag baa jooga adigu weli waad isku duubantahay joog nimankii ka reebay khaalid baana u badnaa baa la yidhi oo ku dhaartay labadiiba naagahoodii buu dumaalay dagaalkii bay ku dhinteen shir shooraa dumaalay oo faarax iyo maxamuud iyo xasan ugaas waa isku hooyo oo waa bawaca ismugo nimanka la yidhaahdo cabdi garaad iyo dudub khaalidna waa isku hooyo oo waxaa la yidhaahdaa bagar dhaalay taariikhdaana shir shoore way inaga soo gaadhay waka haddaan marka u gudbo garaashir shoore markuu dhintay xeer lagu boqri karaya kii labaad madii oolin wuxuuna ugu bay ahayd garaad hore oo ilaahay hadduu ku roon yahay dhintay oo la dhaxlay oo waka hore looma arag arrintii waa ribatay intaana weliba taa u gudbin garaashir shoore waxaa lagu caana shubay geedka la yidhahda cakaara war jiraaba cakaaru iman geedka ma maqashay geedka way geedka lagu caana shubay geedka garaad faarax lagu caana shubayna waa geedka may waxa weeye waa haysimo waa fiqifliya agteeda halkaas faarax iyo maxamuudna ku aasan yihiin oo waba isku dhinacaagsan waxaa la arkaa in duulaan lagu wada diray geedkaas lagu wada caana shubay markaas waxay noqotay labadii u waaweynaa ilma ba wacays mugo oo xagga hooyo isku bah ahaa faarax maxamuud isku bah in la yiraahdo la kala saaro dhowr siyaabood bay inoo soo gaadhay mar waxaa la yidhaahdaa dadkii joogay baa isu baxay waxaa la yidhi waanu idiin imaanaynaa geedka nimowba meel ka fadhiiso nin walba oo meeshaad ka fadhiisteen ha ka kicin faarax wuxuu gartay xaajadu inay raagayso dhinacii cadceedda yuu fadhiistay maxamuudna dhinacii harka casarkiiba waxaa loo yimi kanoo hargalabeedkii fadhiya iyo kanoo milic fadhiya oo qoraxdii ka soo meertay waxay kaloo sheegaan waxaa la yidhi ceel hebel ninkiina intuu biyo ka soo qaado ceel la isla yaqaano ceel magaciisa way sheegi jireen wegalun soo hoyda yaa yeelanaya bahasha nina wuxuu ka haystay faras uu yaqaanay oo aad u dheereeya nina geenyo kareeba intii horena wuu sii cayrinayay intii dambana iyadaa soo watay maadaama kareeb tahay oo waxa lagu soo marka saasuu ku soo hormaray saasay ka sheegaan hase yeeshee garaad faarax baa lagu caana shubay ilaahay hadduu kuu roon yahay wax dhibaato ana waa kuwan isku dhinacaasanba marka laba qabiil ma ahayn laba nin oo walaalaha bay ahaayeen exactly dee waaba isku hooyaba walaalaha aabba ka sugo waaba isku hooyo waa isku hooyo isku aabbi marka laba jifiyood oo kala qaadayeen dadka iyaga dee wixii isu xigay marka dadkii ay bateen bay muuqatay exactly garaadaad bad mahadsan tahay garaad cabdalle uu ka wareer yahay garaad faarax iyo garaadada kale ee waxa weeye soo maray garaadtooyada Dhulbahante war nagas